بسم الله الرحمن الرحيم مقعي هو وليد محمد علي وليد أرتيتا waxaan ka tirsanahay idaacadda Daryeel ee magaalada Muqdisho waxaan ku faraxsanahay in aan maanta u dabaaldegayno sanad guuradii 61aad ee ka soo wareegatay markii ay isku tageen labada gobol ee Waqooyi iyo Koonfur oo ah koowdii bishii Luulyo 1960 Soomaaliyeed meel walba ay joogto dal iyo dibadda waxaan leeyahay hambalyo ilaahay sanadkiisa kala qeer bashbash iyo barwaaqo iyo dalkoo nabad ah lagu gaarsiiyo innagana waxaan alla ka rajeynaynaa in sanadkan iyo sanadka xigaba qeer alla uu nagu gaarsiiyo Soomaaliyeed waxaa leeyahay hambalyo 61 guuradii ka soo wareegatay markii aan xornimada ka qaadanay dalalkii Talyaaniga iyo Ingiriiska oo na guuleysanayo dhamaanteen waxaan leenahay Soomaaliyeed hambalyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي هو سعيد عثمان حسن سوسو waxaan umada Soomaaliyeed ugu hambalyeynaya munaasabada kowda Luulyo oo ah maalintii Soomaali ay midowday waana maalintii calankeena laga taagay gobolada Koonfureed gaar ahaan magaalada Muqdisho waxaan umada Soomaaliyeed leeyahay hambalyo Soomaaliya ha noolaato السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي هو عبد الشكور عبد الله محمود waxaan kamid ah wariyaasha idaacadda Daryeel waxaan hambalyo leeyahay dhamaan umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dal iyo dibadba waxaan ugu hambalyeenayaa 61 sano guuradii ka soo wareegatay markii ay isku tageen ama ay midoobeen Waqooyi iyo Koonfur hambalyo sanadkan sanadkiisa insha Allah anagu caafimaad qabno insha Allah inaan gaarno ayaan rajayn doonaa insha Allah Soomaaliya noolaato السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dhamaan umada Soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo kooda Luulyo waa maalintii ay midoobeen goboladii Waqooyi iyo goboladii Koonfur waana maalintii Soomaali oo dhan ay midowday 61 sano ka hor marka umada Soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo ilaahay sanadkan sanadkiisa xiga ilaahay nagu gaarsiiyo Soomaali oo midowday oo meel walba ay joogaan barwaaqo ku nool oo isjecel markale waxaan leeyahay hambalyo Soomaaliya ha noolaato بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي ومحمد أبو بكر محمد باريو waxaan halkan hambalyo kaga dirayaa dhammaan umada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan iyo si walba oo muuqaalkeena u soo gaarayo sidoo kale si gaar ah waxaan ugu hambalyeenayaa bahda ku xiran janaalka Mahad Bunjabshe official waxaan ugu hambalyeenayaa munaasabada 61 guuradii ka soo wareegtay markii ay xornimada qaateen gobolada Koonfureed ee Jamhuuriyadda Soomaaliya sidoo kalena ay midoobeen labada gobol ee Waqooyi iyo Koonfur umada Soomaaliyeed dhammaan waxaan u rajeynayaa barwaaqo iyo bashbash inuu sanadkan alla nagu gaarsiiyo iyo midnimo iyo anagoo ka dhabeena maanta hadafka ay lahaayeen awoowayaasheena hambalyo aan leeyahay markale Soomaaliya ha noolaato بسم الله الرحمن الرحيم مقعي هو أحمد إبراهيم نانستيد وجرماني waxaan ka howlgalaa warbaahinta Daryeel markood waxaa farxadii ah inaan ka soo muuqdo YouTube-ka Mahad Bunjabshe tan xigta waxaan umada Soomaaliyeed ugu bashaareynaya kooda Luulyo waxaan lagu jiraa toddobaadkii xorriyadda kooda Luulyo runtii waxay ahayd maalintii dhammaan la midoobay gobolada Waqooyi iyo Koonfur gaar ahaan runtii markii sidaas loo midoobay kadib oo markii la taagay calanka qof walba oo daawanayo waxaan leeyahay ama qof walba oo YouTube-ka daawanayo hambalyo toddobaadkii xorriyadda waxaan soo wada qaadanay toddobaad dhammaanteen ugu weyn qof walba oo Soomaaliya ku weyn Soomaaliya ha noolaato sanadkan sanadkiisa waxaan rajeynaynaa sanaysi ka wanaagsan Germany marka la idin salaamayo hala saara subscribe-ka si lamida shartana lagu qabto soo dhawaada saaxiibayaal السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله وحان ugu hambalyeynaya shacabweynaha Soomaaliyeed dhamaan inta calanka Soomaaliya ku abtirsata ee sumada shanta keesood waxaan ugu hambalyeynaya kooda Luulyo ama bilashada ama curashada kooda Luulyo maalintii Koonfurta ee xornimada qaadatay calan Soomaaliyeed laga taagay cawaale ama calanka Soomaaliya ee shanta keesood ee laga taagay ayaan ugu hambalyeynaya hambalyo dhamaan umada Soomaaliyeed gaar ahaan saaxiibada ku xiran YouTube-ka Bunjabshe official meel kasta joogtaan calaamadaha leenahay ama meel kasta joogtaan si walba ay noo daawan doontaan hambalyo mar kale hambalyadana waxay ku saabsan tahay maalintii ay midoobeen gobolada Waqooyi iyo Koonfureed waana koodii bishii Luulyo 1960 waana 61 sano guuradii ka soo wareegtay maalintii ay labadaas gobol midoobeen
gobolladan koonfureed waxay xornimada ka qaateen dhankii dowladda talyaaniga halka gobollada waqooyi xornimada ka qaateen ingiriiska 26 bishii juun 1960 laakiin maanta iyo si wada jira u midoobeen labada gobol waxaana saaxiibada janaalkan waxaan leenahay hambalyo haddii ay tahay markaa ku wareysi oo aad muuqaalada maanta daawanayso subscribe nagu sadaqayso laagta nagu dhiirgeli commentiga aragtida nala wadaag sheerta nagu caawi furana calaamada gambaleelka digniinta si aad kaga mid noqoto kuwa ugu horeeya ee hela macluumaadka halkaas maasinidii waxaan idin leeyahay Soomaali meel kasta joogto ha noolaato